waa kuma sareeye gaas maxamed aadan saqadhi dabagale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ciidanka iyagu waa wadanka gudihiisii wuxuu yeelayeen madaxda saruun baa og adiga ku sheegi maayo daawada warbixinteena waxaynu ku eegi doonaa qayb yar oo kamid ah taariikh nololeedkii ciidanimo ee uu kamid ka ahaa ciidanka qaranka Soomaaliland iyo waliba hawlgalladii uu ka sameeyay qaar kamid ah deegaano hoos yimaada gobolada Sool iyo Sanaagba sareeye gaas maxamed aadan saqadhi dabagale waxa uu kamid ahaa saraakiishii ciidan ee hormuudka ka ahaa in suurtagal noqoto in deegaano badan oo ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag way hore u sheegan jirtay Puntland ay ka taagaan calanka Soomaaliland bishii December ee sanadkii 2011 oo loo magacaabay hoggaanka hawlgelinta ciidanka qaranka ilaa 2015 oo loo dalacsiyay sareeye guuto dhammaan sanadadaasi u dhaxeeyay oo ciidanka taliye ka ahaa Ismaaciil Shaqalle waxa uu kamid ahaa saraakiishii sababay in ciidanku si joogto ah ugu sii siqaan xuduudka kana qabsadaan maamulka Puntland magaalooyin xuduud ahaan ka tirsan Soomaaliland balse ay waqtigaasi xukumi jirtay maamulka Puntland kuwaas oo ay kamid ahaayeen Faqi Fuliye aw Boogays ilaa Xudun oo u dhaxeeya Ceerigaaba iyo sidoo kale Laascaano kuwaas oo ay wejiga koobaad kaga qabsadeen Puntland halka ay wejigii labaad ciidanka Puntland ka riixeen Sarmaayo Tale Holhol iyo ilaa iyo hawdka sida Gambara Karin Dabiil Weyn Boocame Qoriley Saaxdheer Dharkayn Geeyo Ballicad ilaa Carooley sidaas ayay ku soo xidheen xuduudka dhammaan inta ay ciidanka Soomaaliland qabsanayeen deegaanadaasi maxamed aadan saqadhi dabagale oo xilligaasi ahaa gaashaanle sare waxa uu ahaa hoggaanka hawlgeliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland waxaanu ciidanka ku hagaayay taatikadii lagu qabsaday deegaanadaasi haddaba aynu dib u milicsanno qaar ka mid ah muuqaaladii xilligaasi oo uu kaga warbixinaya hawlgallada ciidanku sameeyeen taliyaha hawlgelinta ciidanka qaranka gaashaanle sare maxamed aadan saqadhi oo ku magac dheer dabagale waxaana ugu horreyntii aanu wax ka weydiinay sababta ay ciidanku halkaasi u gaadheen waxaanu ku jawaabay horta sida aad sheegtay ciidanka iyagu uu gaadhay ciidanka iyagu kormeer buu sameeyaa oo waxaa jira guutooyin si gaara u tababaran kormeerada kolba degmadu dooru tagaa kormeerkii caadiga ah uu degmooyin kale ku tegi jiray uu tanna ku tegey si nabad qalana wuu ku gaadhay dadka deegaankuna iyo odayaashuna si aad ayay u soo dhaweeyeen maxaad nooga sheegi kartaa halka wax iskoorimaad ma kala kulanteen qolihii shirka ku hayay degmada Taleex maya waxa weeye wax iskoorimaad ma jiraan ciidanku nabad qab ku tegey ku jooga adeer waana dee wadanka iyaga Soomaaliland bay ka mid tahay kuwa halkaa ka wadayna caasiyiinta ah ee qarankan ka gaaloobaya way ka yaaceen meelay qabteen ma garanayno waa raadinaynaa ilaa imika waa baaraynaa meelkastay ku jiraan ciidanku imika ma laga yaabaa inuu ka soo noqdo mise sidii kal horeba dhacday mise ciidankiinu hadda ku sugnaan doonaa taas waxa weeyaan kaaga jawaabi maayo waa arrin military ciidanka iyagu waa wadanka gudihiisii wuxuu yeelayeen madaxda saruun baa og adiga ku sheegi maayo bismillahir rahmaanir rahiim salaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxaan ku soo dhaweynayaa goobtan oo ah 120 kiiloomitir ka xigta koonfur bari magaalada gobolka Sanaag Ceerigaabo oo lagu magacaabo degmada Faqi Fuliye wafdiga uu hogaamiyo ciidanka qaranka iyo wasiirada kale iyo mudanayaasha kale la socda anigoo ah madaxa hoggaanka hawlgelinta ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaanu nimi shalayto waxa aanu 8 cisho ka hor balaan qorshe aanu sameeyay taliyaha ciidanka qaranka uu sameeyay oo taliska guud ah iyo madaxda kale dawladdu ciidan ballaaran oo inaanu xadka soo xidhno si aanay u soo gelin nimankii qashqashaada waday ee Puntland ee laha goboladaas aanu soo gelaynaa waxaanu tagnay meesha la yiraahdo Dahar oo imika inoo jirta 170 kiiloomitir bari inaga jirta oo xadka ku dhow agaasaan joogno ku sugnayn jiid xadkaanu xidhnay dadka runtii waanu Puntland waa ugu tagnay waa ka erinay dadka waanu si fiican baanu ayaanu isla qabsanay noo soo dhaweeyeen 7 cisho imika jiidaanu ku jiray goobtan shalay baanu nimi ciidanku waa ciidan
deganaan kara oo xadka xidhi kara oo meel kasta gaari kara waa idin arki kartaan laakiin hawlihii amarkii taliyaha ciidanka annagoo iyo dowladda fulinaan ku soo noqonnay waa wixii kale warbixinana dib baan u dhigi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi raacoodii ugu soo horreeyey afarta soo difaacaysay ufayskoodii adkaa ee ciidankeenu isaga soo ka sarreeyey taa marka kana kusaasida halkaa laga soo kusaykoodii xeradaas waa xerada sirin halkaa ka muuqata xerada sirin soolera ugu xoog weynay dahayd waxaa ilaahay waxba kamuu taray markii ciidankeenu ku soo kicisanay ciidankeenu kusoo kixi marka horeysana soo weeraran dee ciidankeenu kusoo kicisanay waxa loo ilaahay ka taray ma jiro kaliya toban mirir bacadka ugu mid imika halka saaka waxaad u joogtaa qarankii baad u joogtaa waa damiirkaaga waxa ku jirta horaad soo dhimatay adeerkaa baa ku dhintay aabbaha baad ku dhintay adaa ku soo dhaawacmay imikaad inan yartoo doonaysa inaad kusii dhaawacanto waxaad doonaysaa inaad wax noqotid waxaad doonaysaa qarankan fikir baa kugu jira fikir soo mahayo shucuur soo maha dee faa'iidadii baad markaa ku joogtaa meesha markaad faa'iidadii xisaabisay ya waa inaad garataa salaad waad dhimanaysaa iyadaa lagu hor xisaabinaya ilaahay baad soo taagaysaa iyadaa lagu weydiinaya ya marka waa inaad garataa arrintaa marka saaxiib bal waxaan naftii niyadteedaba ku dardaarayaa inaynu ilaahay ka baqanno salaada tukanno ninka aan tukan aynu hoos u qajeedhino oo aynu ilaa aynu salaada u tukada aynaa ka tegin ya khayr ballaaran baan idin sheegay aad iyo aadna waan idin hambalyaynaya isaa iyo khayr baan isku ogna insha allah sarreeyagaas maxamed aadan saqari dabagale waxa uu hadda yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland oo madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay 2019